السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالين وناكسن صاحبة سيدة توسكا قيمها هي قدرنتا مدن نقل حديد برتا نقل كميديا اسكو سون نقد وناكسن وحساب بدن ورجين يا أديكو عافمات غبا إن هلكن يقد داونيسو سيدة عادة إنه مرول بوحان هلكن يديكو لو ودقنا وربحنا أن إسلامنا هاي صاحبتنا وحن باي مركزي كأوغان كران دعدوين كدلك كجرا سيدة عادة إنه مرول بقل كميديا وحي أتاقنتها إن حكتا iyadoo dhinacna aan u jaran jeerin inay halkan idinkula wadaagto waxaan rabaa inaan halkan marka hore kaga mahad celiyo inta aan muuqaalka ama ciwaanka maanta inta aan u guda gelin saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee halkan sida tooska nooga xiran waxaad mar walba naga mudan tihiin dhiirigelin waxaad mar walba naga mudan tihiin mahad celin maxaa yeelay waxaad tihiin dad mar keliya annaga na sugayo oo sida jadwalada caadiyan halkan warbixinada aan idinkula wadaagno kaliya u taagan waxa aan halkan soo gelino oo aad isha ku haysaan marka hore waxaan rabaa oo aan ogaaday baaritaan dheer kadib ee aan ku sameeyay beejka galka media in aad mar walba tihiin dad halkan ku xiranoo wada suga oo maanta haddii waxba la soo gelin waayo dhahaya war dadkii xaggee aadeen marka hore taas waxaan rabaa laa shaka inaan idinkaga mahad celiyo oo waad muujisaan sidaad annagu mar walba noogu taxan tihiin waan ogaanay sida boorka ka muuqata waa boob lagu bilaabay doorashada golaha shacabka qaylo dhaan culus oo ka soo yeeraysa dhinacyada mucaaradka xaaladda doorashada oo laga yaabo inay ku noqoto sanadkii 2020ka arrinta jiqda ahayd ee dhinacyada madaxweynaha galmudug oo xilligan indhaha ay wada hayaan wakiilada beesha caalamka oo laga yaabo inay faragelin ku sameeyaan arrimaha xilligan ka soo yeeraya qaylo dhaanta doorashooyinka maxaa yeelay boobka inta badan waxaa laga soo warinayaa in uu ka dhici doono deegaanada galmudug ergo aan ahayn ergo saxda ahayna oo ciidamo u badanna garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa maanta laga qaaday oo dhuusamareeb ayay tegayaan waa sida aan xog ku helnay dhinacyo badan ayaa xilligan xusul duubkii ugu weynaa loogu jiraa in kuraasta loo boobo xubnaha kuraasta loo boobayo waxaa qayb ka ah oo ugu horeeyo yaasiin cabdulaahi farey oo ah taliyaha ku-meelgaarka ee misa maxaa yeelay dhinacyo badan ayaa xilligan isku soo aaday iyadoo xalay jenaraal cabdulaahi buulle kamey uu ku dhawaaqay in wax dembi a aysan lahayn fahad yaasiin iyo kulane waa mawduuc kale taa haddaan intaan u gudagelin balse waxa intaa loo sameeyaa waxay tahay in xasaanad ay lahaadaan oo wax dembi ah lagu waayo musharaxiin badan ayaa loo diiday warqadda dembi la'aanta dhinacyada mucaaradka waxa ay leeyihiin dibad joog ayaan ka nahay doorashada saakay ama maanta warbixintan kula wadaagayo haddii adiga ay ka hor imaanayso mabda'aaga maahan inaad halkan saaka igu cayso maxaa yeelay keliya waxaa jira inaan kula wadaago qaado ama ka tag xogtii ugu dambaysay waxa ay tilmaamaysaa in dhinacyo badan oo ka tirsan siyaasiyiinta galmudug ka soo jeeda xilligan ay wadaan qorsho dhabarjibin kara qorshaha culus ee xilligan uu wado madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaa la leeyahay xaaladda xilligan uu horseedayo doorashooyinka waxay guud ahaanba ay markaa u noqon kartaa tusbax xarigga laga jaro dhinacyada dowlad goboleedyada oo iyaguna tallaabooyinkan way qaadayaan muuqaalka sheergalay dhinacyo badan oo ka tirsan midowda musharaxiinta waxaa laga soo xigtay inay si weyna isha ugu hayaan doorashooyinkan shanshanta loo seedaynayo shalay war ay soo saareen waxay ku sheegeen in dhinacyada wakiilada beesha caalamka ee guud ahaanba ee dhinacyada ergada wax dooranaysa ay xilligan dibad joog ka yihiin kuraasta xogtii ugu dambaysay waxa ay tilmaamaysaa in dhinacyo badan oo ka tirsan midowda musharaxiinta ay qaylo dhaantii ugu weyneyd wajahayaan oo ay ka qabaan doorashooyinka golaha shacabka xogihii ugu dambeeyey sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in kuraasta toddobaadkan gudihiisa lagu dooran doono dhinaca galmudug xilligan il gaar ah lagu hayo
arrimaha ugu waaweyn ee sidoo kale lasoo warinayo waxaa qayb ka ah in guud ahaanba xaaladahaasi ay taagan yihiin walaaca xilligan isa soo taraya ee guud ahaanba ku saabsan arrimaha doorashooyinka golaha shacabkana qayb ayay ka tahay. haddaba waxaan doonaynaa su-aasha ah inaan idinkaga tagno maanta, miyay hirgeli kartaa qorshaha xilligan ergadu ay dibad joogga ka yihiin ee doorashooyinka golaha shacabka? waa su-aasha koowaad. midowda musharaxiinta tallaabo ceynkee ah ayay qaadi doonaan? qorshahan haddii uu suuro galo yay dani ugu jirtaa? saddexdaas su-aal ayaan doonayaa inaan kaaga tago. qaybta hoose ee commentiga igula wadaag, warbixintana sii sheergaray. waad mahadsantihiin dhammaantiin. allah idin wada xafido.